السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aad muhiim u ah waana maalgashiga caqliga. Sidee ayaad maalgashi ugu samayn karaysaa caqligaaga? Ganacsiyada ama mashaariicda waaweyn waxay u baahan yihiin maalgashi hantiyadeed si looga helo faa'iidooyin badan. Ganacsi walba ganacsiga uu ka maalgashi badan yahay waa uu ka faa'iido badan yahay. Si la mid ah sidaas garaadkaaga wuxuu u baahan yahay inaad maalgashi badan ku samaysid si uu faa'iidooyin badan kuugu soo saaro. Qaabka ugu wanaagsan ee aad u maalgashan kartid garaadkaaga ayaa ah inaad xogo badan heshid. Qof walba qofka kale inta uu ka xogogaarsan yahay ayuu ka garaad badan yahay, kana haleeli og yahay go'aamada saxda ah. Xogta waxaa lagu helaa dariiqooyin badan. Dariiqooyinka lagu helo waxaa ka mid ah wax akhriska. Inaad wax akhrisid waa qaabka ugu wanaagsan ee aad garaadkaaga ku maalgashan kartid. Wax akhriska wuxuu kaa dhigaa qof xogogaal u ah nolosha qaybaheeda kala duwan. Adigoo 20 ama 30 jira ayuu kaa dhigaa sida ruux qarniyaalo noolaa. Garaadkaaga si aad u kobcisid waxaad u baahan tahay inaad wax badan akhrisid. Waxaa yaalaan buugaag badan oo noocyo kala duwan ah. Haddii aad tahay ruux jecel ama daneeya maamulka iyo maaraynta, waxaa jiraan buugaag aad u tiro badan oo laga qoray. 500 oo ka mid ah buugaagtaas haddii aad akhrisid, hubaal waxaad tahay khabiir aad iyo aad ugu xeel dheer arrimaha maamulka iyo maaraynta. Haddii aad jeceshahay horumarka iyo guusha, waxaa jiraan buugaag badan oo iyagana laga qoray. Dadyow badan oo guulaystay ayaa buugaag ka qoray siraha guushooda, waxayna kuu soo gudbiyeen wadooyin badan oo aan lagu guulaysan karin iyo kuwo badan oo lagu guulaysan karo. Haddii aad akhrisid buugaagtaas waxaad ka badbaadaysaa qaladaad badan oo ay macquul ahayd inaad ku dhici kartid. Wax akhriska waa sahanka nolosha. Waxaa jira dhaqan Soomaalidu ay leedahay gaar ahaan kuwooda xoolo dhaqatada ah ee baadiyaha ku nool ama loo yaqaan reer guuraaga. Hadba waxay u guuraan meesha uu roobka ka da'o oo ay barwaaqadu ka jirto. Balse ka hor inta aanu reerka guurin waxaa jira sahan la dirsado kaasoo soo sahmiya meesha ku habboon in loo guura. Sidoo kale wuxuu soo ogaanayaa wadooyinka loo mari karo. Waxaa dhici karta wadooyinka qaar in tuuga fadhiyaan, qaarkoodna ay biyo fadhiyaan. Haddaba su'aashu waxay tahay reerku sahan isagoon haysan miyuu guuri karaa? Dabcan jawaabtu waa maya. Haddaba sideed ku doonaysaa noloshaada in aad bilaa sahan ku hogaamisid? waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Fadlan subscribe channelka Hantiya Media, sidoo kalena taabo calaamada gambaleelka si aad u rukumatid muuqaalada kanaalka la soo geliyo. Like saar haddii uu ku qanciyay muuqaalka, lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.